subax anigoo taagan isgoyska Maanabolio 1992 ayaa waxaa ii muuqan waayay arday sita buug ama xiran dhar iskuul oo kala haya murugadii iyo walwalkii aan maalintaas Maanabolio ka qaaday ayaan ku garwaaqsaday in waxbarasho la'aanta darteed dhalinyaradu halis ku jirto dalkana halis ku tahay haddaan xal loo helin si aan u guto waajibka damiiriga ah iyo kan wadaninimo anoo madax bannaan waxaan go'aansaday in aan ka tago shaqo aan u hayay UN-ka una istaago badbaadinta jiilka mustaqbalka ee dalkeena dabley hubaysan oo deganeyd sarti Maanabolio ayaan ka codsannay in ay noo banneeyaan daarta waxaa sidaas ku furnay iskoolka aan u bixinay Muqdisho Primary School dhowr jeer ayaan halis ku galnay oo nalagu soo weeraray iskoolka markii ugu dambeysay dableydiina soo weerartay waxay dibadda u soo saareen annaga iyo ardaydiiba nin saaxiibkay ahaa iskoolkana ila furay ayaa igu yiri yaan iskoolkan dhexdiisa lagu dilin waan dareensanaa halista saaxiibkay iga digay laakiin waxaa igala cuslayd rajabeelka ku dhici lahaa caruurtii iskoolka dhiganaysay haddii la xiri lahaa iskoolka intaan ka quusan lahaa mustaqbalka ardayda waxaan goostay in aan xal raadiyo halgan dheer kadib ardaydii duruufta adag wax ku baratay waxay soo gaareen in ay dugsiga sare dhammeeyaan waxaa lagama maarmaan noqotay in ay helaan tacliin sare sidaas ayaan ku furnay macadka simad September 2001 waxaa qalin jibiyey dufcaddii koowaad ee macadka waxay ahayd maalin dareen weyn aniga igu leh guushii ardaydaas waa guusha hayaankii waxbarasho ee ka soo bilowday isgoyska Maanabolio waalidiinta ardayda iyo macallimiinta joogay goobta qalinjibinta way faraxsanaayeen anigase waxaa ii gaar ahaa walwal aan ka qabay shaqo la'aanta ku dhacaysa ardayda qalin jibisay maadaama shaqada la isku siin jiray aqoon iyo hayb waxaan xasuustaa 7 arday in aan shaqo uga soo helay shirkaddii Nationlink waxaase shuruud la iiga dhigay in aan aniga damiin ka noqdo ardaydaas kama labalabayn inaan mas'uuliyaddaas qaato waxaan ku kalsoonaa tayada aqoontooda iyo wakhtiga aan gelinay barbaarinta ardayda waxaan ku barbarwaday shaqo cilmi baaris ah oo aan ku darsaynay daqarrada kala gaaray bulshada Soomaaliyeed iyo sidii loo dhayi lahaa waxaan tegay inta badan gobollada dalka waxaan baaris ku samaynay colaadaha iyo wixii ay salka ku hayeen hawshaas cilmi baarista ah iyo xal raadinta ah intaan ku dhex jirnay dhowr mar ayay nafteennu halis ku gashay saaxiibkay allah u naxariiste Cabdulqaadir Yaxya Cali ayaa ku baxay gacanta kuwa ciribtirayay qof kasta oo ay ku tuhmayaan in uu qayb ka noqon karo xalka Soomaaliya dilka saaxiibkeen wuxuu abuuray niyad jab sababtay in haldoor badan oo nala shaqaynayay ay dalka ka cararaan ma cabsan haddaan iraahdo waan faanay waxaase isku kay dhinac yeelay inaan hayaamo iyo inaan halgamo waxaan doortay inaan halgamo oo aanan quusan waxaa ii muuqatay in Soomaalida iyo adduunkuba waqti badan ku lumiyeen raadinta xal mar kaliya dadka oo dhan ku daawoobo ma jiro gobol ku dhibaato iyo baahi ah ama tuulo ku colaad ah sida ay dhibaatada iyo baahida u kala duwan tahay ayuu xalkooduna iigu muuqday in uu u kala duwan yahay dadaalkeennii waxbarasho ma dabooli karin baahida nooc kasta leh ee jirtay in 10 ama 20 arday aan shaqo u soo helo kuma fillayn boqolaalka arday ee sanad kasta ka soo qalin jibinayay jaamacadaha hawsheennii cilmi baarista iyo nabadayntuna
kuma filnayn joojinta iyo xal u helidda colaadihii dalka ka jiray. waxaa lama horaan ahayd in la helo dowlad dhab ah oo deeqda ummadda oo dhan. taasina ma suurto geli karin inta shaarkeennu cad yahay oo aan iska dhowrayno siyaasadda. dadka siyaasadda ku jirana ay hareer marsan yihiin waddada xalka. si aan u hirgeliyo isbeddel dhab ah oo wax ku ool ah oo dadka iyo dalkaba wax tara, waxaan go'aansaday inaan ka shaqeeyo siyaasadda, iskuna sharaxo madaxweynaha Soomaaliya oo ah meelaha wax laga sixi karay. Sebtembar 10keedii 2012 waxaa baarlamaanka Soomaaliya ii doorteen madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa la igu wareejiyay dal sabool ah, dowlad federaal ah oo aan banaadir dhaafsiisnayn, dowlad caasimadeeda in ka badan 60 isbaaro ay taalo, dal inta badan argagixisada ay haysato, dowlad aan miisaaniyad iyo bangi dhexe oo shaqeeya aan lahayn, dowlad aan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn inta badan caalamka, dowlad aanay u dhisnayn hay-adihii dowliga ahaa, dowlad aan lahayn shaqaalo rayida oo diiwaan gashan, dowlad ay wax kasta oo dowladu u baahnayd ka maqan yihiin. caqabadihii hor yaallay way badnaayeen, waxaanse diiradda saaray inaan dowladnimada hoos ka soo dhisno, annagoo shaqada siday u kala muhiimsan tahay u kala hormarinaynay. waxaan ku dhaqaaqnay fulinta heshiiskii bulsho ee ahaa hirgelinta nidaamka federaalka ah. waxaan ku guulaysanay xoreynta gobollo badan oo argagixisadu ay haysatay. waxaan qaadnay isbaarooyinkii caasimadda dhex yiilay. waxaan diiwaan gelinay shaqaalihii rayidka ahaa. waxaan dib u howlgelinay hay-adihii maaliyadda sida bangiga dhexe. waxaan dejinnay miisaaniyaddii qaranka. waxaan dardar gelinay wadahadallada Somaliland oo aan u fududaynay adeegyadii uga xirnaa dowladda federaalka ah. waxaan soo celinay xiriiradii caalamiga ahaa. waxaan dejinnay siyaasad arrimo dibadeed oo ka madax bannaan colaysi, annagoo danta Soomaaliya ku raadinay iskaashi iyo diblomaasiyad. daadejintii awoodaha iyo maamulka federaalka ee aanu ku baahinay waddanka ayaa suurto geliyey 49 sano kadib in aanu Soomaaliya ka hirgelinno doorasho dadban oo ka dhacday meelo badan oo kala duwan. anigoo ka dhabaynaya u saldhigidda siyaasadda xasiloon ayaan hirgeliyey doorasho hufan, daah furan, loo dhan yahay, loona siman yahay, oo la iiga guulaystay natiijadeediina aan aqbalay. shaqadii aanu ka qabannay qaran dhiska iyo haykalka dawliga ah waxaa ku yimiday dib u dhac. dalkuna wuxuu maanta marayaa siyaasad ahaan, amni ahaan, dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba meel ka liidata meeshii aan uga tegay. Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa iga haysa laxajeclo qoto dheer, anigoo intaan ka waaya aragnimo yar, ka khibrad yar, ayaan ka quusan waayay Soomaaliya. maanta oo aan ahay oday Soomaaliyeed oo xogogaal ah, sideen uga quusan karaa? si aan uga kabanno dib u dhaca, u soo celinno isku duubnida ummadda iyo xasiloonida dalka, waxaa loo baahan yahay siyaasad, dulqaad, dimuqraadiyad iyo damqasho leh oo horseeda dhammaystirka dhismaha qarannimadeenna. Soomaaliyey, waxaan ahay murashax u taagan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2020. sidaas darteed